xaaladda guud ee gobolku gaar ahaan magaalada Boorame aad bay u degan tahay. qaybta biliiska gobolka Awdal gaashaana dhexe Cabdiraxmaan Nuur Colaye oo maanta warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha amniga ee gobolku hadda marayo isagoo sidoo kalena xusay bamba gacmeed la sheegay in lagu tuuray wasaaradda maaliyadda xafiiskeega ku yaala magaalada Boorama waxaanu sidoo kale ka jawaabay cabasho ka soo yeedhisay waalidiin sheegay in caruurtoodii laga raray xabsiga dhexe ee gobolka Awdal haddaba taliyaha oo arrimahaasi oo dhan ka hadlay xaaladda guud ee gobolku gaar ahaan magaalada Boorame aad bay u degan tahay. magaalada 100% wax alla wax dhibaato hadda ka taagan ma jirto. dhacday habeenkii dhaweyd ee ka dhacday wasaaradda maaliyadda runtii arrin fool xun buu ahaa. isla markay dhacdayna dhammaan ciidamada amnigu goobtii muddo 10 daqiiqo ka yar ayay ku wada gaadheen oo ay ku bilaabeen baaritaankoogii. runtii cid wax kuma noqon nasiib wanaag laakiin dhacdo fool xun bay ahayd. waxaan idin sheegayaa magaalada inta leeg ee 100,000 qof ku nooshahay inayna khalkhal gelin karin nabadgelyadeeda qof ama 2 qof ama 3 qof oo dan gaar ah leh oo la adeegsanayo inaan ka yeelayn. imikana waxaan idin sheegayaa in magaaladu degan tahay. raadkii ficilka dhacay iyo cidii ka dambeysina inaan raad fiican ama warar xogo wanaagsan in aan ka hayno aanan ku daba jiro hadduu alla yidhaa. boolisku wuxuu sameeyaa ka hortag ama ka dabatag labadaba sida caalamku uu shaqeeyo. kiis aanu runtii ka hadhnayna maaha waana kiis aanu hayno raadadkiisii cid alla ciduu nala galana sharciga ayaanu la tiigsan doonaa hadduu alla yidhaa. aad baad adeer u mahadsan tahay. meecaad way jirtay caruur tiradeedu ku dhowdahay ilaa 75 ayaanu u qabanay kuwaasoo aanu ku qabanay falal amni darro ama mid kooxaysi ama dagaal safayna ayaanu ku qabanay si haddaba caruurtu ay uga waantoobaan dhacdooyinka aan sheegay iyagana ayna lafahoogu dib u gaadhin cid kalena ayna dhibaato u geysan. amni ahaan ayaanu u xidhnay go'aan guddi nabadgelyo. runtii xabsiga Boorame waa xabsiyadii hore gobolka waxaa ku soo kordhay xabsi weyn oo ballaadhan oo laga dhisay degmada Baki si haddaba annagoo ilaalinayna caafimaadka bulshada iyo maxaabiista ayaanu u wareejinay xabsiga Baki. imikana meel fiican bay noo maraysaa annaga iyo waalidada. insha Allah waxaan filayaa maalmaha soo socdana in ay soo afjarmi doonto ama aan soo dayn doono ubadka hadduu alla yidhaa. wariye waad mahadsan tahay. wax alla wax ka jira ma jirto. runtii xabsigu waa hanti qaran dowladdaa leh ummaddaa leh cid alla cid iibin kartaayna ma jiro. laakiin waxay ahayd propaganda lagu kicinayay dadka markaanu caruurta u wareejinayna xabsiga dhexe ee Baki ee qaadistoodu ay soo dhaweyd ayaa dadka si loo kiciyo dad warxumo tashiila been abuur wada ayaa waxay damceen inay bulshada ku kiciyaan. xabsigii waa la iibiyo caruurtiina waa la qaadaya. wax alla xabsi la iibiyay ma jirto. xabsiguna haddada waxa ku jira maxaabiis saacada aan idin la hadlayo intii badnayd ayaanu u rarnay xabsiga degmada Baki si caafimaadkooga annagoo dhowrayna ay u kala fududaadaan. xabsigu wuu yaraa waxaana ku xidhnayd maxaabiis fara badan oo dhowr boqol ah. xadhig uun mas-uul kama nihine caafimaadkoogana mas-uul baan ka nahay maxaabiista. marka caafimaad ahaan ayaanu ugu rarnay degmada Baki oo ka mid ah isla gobolka Awdal. waxaan ugu baaqayaa Soomaalidu waxay ku maamaahdaa
baruurba baruuryo qudhmisa nin dan loo ciyaalo suuqa ama meelo kale laga wado iyuuna nabadgelyadiina ku ciyaari nabadgelyo ilaahay baa kitaabkiisa ku sheegay rasuulka noo sheegay wuxuu yiri allahumma inni as'aluka al-amn wal-iiman iimaankii aanu ku dhalanay ee islaamnimada ahayd waxa laga horreysiyay amniga waxaan ugu baaqayaa nabadgelyo waxaan leeyahay inay sidii wanaagsanayd ee noola shaqeeyaan Cabdillaahi Dabshid Kalson TV magaalada Buurama.